madaxweynaha Somaliland oo maanta khudbadiisii shanaad ka jeediyay golaha wakiilada iyo guurtida Somaliland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo badan waxaana markii kulankaasi soo dhamaaday khudbada madaxweynaha Somaliland la hadlay saxaafad gudoomiyaha golaha guurtida oo isagu diiday in madaxweynaha Somaliland su'aalo la weydiiyo waxaana uu ku sharaxay in madaxweynuhu la hadlaynin mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida ee Somaliland ee uu shacbiga Somaliland u la hadlayay waxaana uu tilmaamay in maanta oo kale aan loo baahnayn su'aalo لكن سؤالي وكله حتبانده واد كهور استاغتay arinta ka waran anu su'aalo maalintaas soo kale su'aal ma leh waa madaxweynuhu xaaladda wadanku ka waramay qaranka ma laha markaa dadweynuhu waramayaa xildhibaanadu warama waxaana sidoo kale ka hadlay khudbadani madaxweynaha Somaliland uu jeediyay xubno kamid ah mucaaradka Somaliland oo ku sifeeyay khudbada madaxweynaha Somaliland mid aan sax ahayn kadib markii cadaadis laga saaray in madaxweynaha su'aal ay weydiiyaan waxaana sidoo kale khudbadani madaxweynaha Somaliland soo dhaweeyay mas'uuliyiinta muxaafadka ah oo ku tilmaamay in ay ahayd khudbad meeqaamkeedu sareeyo waxay ahayd fariin uu guurtida u dirayay oo ahayd muddo kordhinay khudbadiisa macnaheeda iyo nuxurkeeda waxaan u arkaynay fariin cad oo golaha guurtida u dirayay oo ah in loo sameeyo madaxweynaha muddo kordhin sababtoo ah ereydii ugu horreeyay ka soo baxay waxay ahayd doorashada waqtigeedii ku qabsoomi mayso horena madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday inaan habeen loogu dirayn khudbadaas sanadlahaana waxa loogu talagalay laga sugayey oo ummaddu uga fadhiday in madaxweynuhu akhriyo khudbad dhinacyo badan leh oo dadka tabashooyinka ay tabanayaan daweysa haddii waxa laga sugayay inuu sheego doorashadii waxa laga yeelay waxa laga sugayay wadahadalladii istaagay ee Soomaaliya iyo Somaliland ee akirmay ee ku fashilantay xukuumaddani inuu ka hadlayadana bal halka loo jahaynay siyaasadda arrimaha dibadda waxa laga sugayay dhaqaale burburkan waddanka taagan iyo sicir bararkan hadheeyay ummadii danyarta ahayd inuu iyadana ka hadlo oo sheego wax ku sheego khudbadii madaxweynaha khudbad sanadeed wanaagsan bay ahayd wax walba uu ka hadlay meel walba uu taabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u arkay inay ahayd khudbad qiimo leh khudbad kooban dhinacyo badan taabanaysa dareenka dadka reer Somaliland ee fayow ee wax qabadka iyo aqliga wanaagsan ku fakarayna qalbigooda iyo maskaxdooda gaadhay khudbadii madaxweynaha uu saaka labada gole ee guurtida iyo wakiilada uu akhriyay waxay ahayd khudbad dhaxalgale oo qiimo leh oo aad moodid inay ka sii tayo sareyso kuwii hore ee madaxweynuhu halka ka soo jeedin jiray si kastaba ha ahaatee khudbadani madaxweynaha Somaliland uu maanta jeediyay ayaa ah mid xasaasiyad ku abuurtay gudaha Somaliland waxaana shacbiga kala duwan ee Somaliland ay ku noqotay mid ay kaga sheekeeyaan meelaha ay isugu yimaadaan maxamed farax bilo wararka shabakada caalamiga I'tiraaf News gudaha magaalada Burco.